الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أنيقو مركو هوري إذكو السلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو رشيد عبد الله قاس قدوميها قربة شوكتا بيلها قبويه waxaan uga faa'iideysanayaa farintaydan amba message-kaygan ama risaaladaydan munaasabada sanadka cusub ee 2015 inaan xaggan uga tabiyo tahniyad iyo bogaadin dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan beelaha gabooye meel kasta daafaha dunida ka joogaan. waxaan Ilaaha qaadirka ee Raxmaanka ah uga baryayaa beelaha gabooye in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sanadkan uga dhigo sanad isafkarad sanad isu dhawaansho sanad barwaaqo sanad horumareed sanad ka gudub caqabadihii iyo kala baahsanaantii faraha badnayd ee muddooyinka badan haystay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sanadkan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inooga dhigo. haddaan taa ka gudbo walaalayaal 20 bishii November 2014 amba 14 waxaan ka qayb galnay shir caalami ah oo ka dhacay Geneva xarunta United Nations ee wadanka Switzerland. shirkaasoo qaban qaabadeeda iyo hadii Bakuro yahay diyaarinteeda oo iska lahaa خير بدن الله سيه ولكن قدومية ناصر محمد عيسى وقدومية Minority Organization for Europe and North America وحكرنا قال قيب قالي بقر أحمد وقاس إمام ورسمه بقر كجود بيلها جبوية وحكرنا قال قيب الشيء وسير كحجان كهوين ك اسمه دولة قبلات كبوتلاند مرو فرحية يوسف شركاسي وحا كسو قيب قلي دور يلا باتن دولدود minority قودي بديو قودي لقد تربضنا المدة تدبع عشو السعودينا بيش القبوية عامهان نقول فربضن باوسوهيتي واتقوادي ururkan gabooye Minority Organization oo loo aqoonsaday inuu yahay urur u dooda amba matala beelaha gabooye aqoonsigaas oo laga siiyay midowga Yurub jaamacadda Carabta ururka dawladaha Islaamka iyo ururka midowga Afrika iyo dawladaha IGAD organization ururo iyo hay'ado fara badanna ay aqoonsigaas iyaguna ay qaateen. waxa kale oo shirkaas guulka ka soo heetay ay tahay in xubin 13aad ee xubnaha joogtada ah ee minority-ga lagu daray boqor Axmed Ugaasimaan. waxa kale oo shirkaas ka soo helnay in dadiyowga minority-ga ee ku sugan qurbaha in xaaladahooda si bini'aadminimo oo baahsan wax looga qabto. in xakameyn lagu sameeyo dadiyowga aan haybta gabooyaha ahayn ee isku dhiibaya inay yihiin gabooye. intaas oo arrimood walaalayaal waxaan qabaa inay tahay arrimo lagu farxo arrimo la soo dhaweeyo. xilliyada qaar ma jirin gabooye United Nations ka hadlaan qadiyadiisa gaarsiiya laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin marka in gacanta la isqabsado اللي يسوي سودوادو إن احترام يمضانته عدي وحقبنسه أن لقول دليل وهايب أن لقول دليل ورائر أن لقول دليل لكن
waxqabadka muuqda ee mugga leh lagu soo dhaweeyo oo lagu garab istaago taa waxaan ku keenay amba aan uga hadlay ma waxba kama nagama dansaneyn waxyaabaha la isu soo dhigayo barta Facebooka oo ahayd waxyaabo macnaheedu qof dad bil'aadmiya oo karaamadooda iyo sharaftooda si mutadawacnimo ah oo si bil'aadminimo ah oo si isxilqaamisa يعني ummadooda wuxuu ku qabanaya hadana dhaliilo iyo magaranayay loo soo jeedinayo waxyaabo aan laaqi amba waajib ahayn laakiin nin xilqaad ay hor Soomaali u tiri carabna waxay tiri algaayat akthar min raayahat يعني inta waxa soo socda way ka badan yihiin wixii tagay marka in la isu guntado la isu soo dhawaado waxaan baa u dirayaa dhamaan qurba joogta gabooye meel kasta joogaan baaqaygaasoo ku wajahan ummadaha kale qurba joogtooda badiyaas barado way naga baraka badan yihiin laakiin inagama tiro badna dadkooda samafal bay u sameeyaan dadkooda iskuulle u sameeyaan dadkooda dhakhtarre u sameeyaan dadkooda haddii ku rooyahay dhaqaale kobac kor u qaadis bay u sameeyaan war waxaan idin leeyahay oo idin faraya sanadka 2015 isbedel aynu keenno oo dadkeennii dalkii ku tabaalaysan ee aad ogtiin xaaladaha ku sugan yihiin mid cusuriyeed mid maadiyeed mid yani dhibaatadu ma la soo koobi karo qof wal oo inaga midina dalkiibu ka yimid xaaladu markuu joogay dadkeena lagu dhaqmay ama ku sugnaa wuu ogaa laakiin dadka ay iyaga gacan qabto iska saara inaad gacanta la isqabsado in la iska saaro wax allaala wixii xumaana ee dadiyowga ummadda wax u qabanaya in la is dhageysto in la isu soo dhawaado in hadeeba ku rooyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu ka baqano ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahad aynu mar walba mahadnaq u sameeyno ilaah bilaadmi iyo islaam inaga dhigay ee caafimaadkeena siiyay ilaah gabooye inaga dhigay inuu mahadnaqno sababtoo ah gabooye ilaahay baa uumay in male cid kama qurux badna cid kama wanaagsana cid kama dhaadheera cid kama aqoon badna laakiin tayadoodu waxay ku dhiganta waxay ku baabaaysaa ay ku milmaysaa tawfiiq la'aan iyo isu soo dhawaasho la'aan in ilaahay tawfiiqdeen ina waafajiyo in ilaahay bogeed baracsukeed mariyo in ilaahay sanadkaas sanad isbedel degdega ilaahay inoo soo dejiyo ayaa waxaan idinka codsanayaa nin walow oo qurbo joogowga ilmahaagii yani way nool yihiin ambaha kula joogaan ambaha ka maqnaadaane de ilmaha kale ee gabooye ee aan cid u maqnayn ceelna u qodnayn lama mid aha marka inaan jiilasha iyo caruurteena iyo dadkeena dhibaataysan inaynu ogaano aqoontooda kor u soo qaadno wax us abuurno waxaynu inagu u bilowno ayaa waxaan qabaa ummadda kalena gacan nagu siinaysaa hay'adaha kale adduunkuna gacan nagu siinayaan inaguna taakulaynayaan marka nin walba inta tib dhexda xirato oo hadii ku rooyahay tanqato oo dhiidido oo yani iska noolo iska dhima maaha waa in mar walba ina cabanayna heeriyana saaran cunsuriyad bana lagu hayaa xaqraad bana lagu hayaa sanana lagu hayaa waxa weeye inagu inaynu horto saxno inagu isu soo dhawaano inagu hadii ku rooyahay cid wax qabanaysa ixtiraamno cid wax qabanaysa yani umuujino magaranayay maanu arag hambali maanu arag magaranayay waa guul hadii laga tago waa in fara ku tirisa marka ma habboona qofka wax qabanayna in la dhaliilo isagoo waxba qaadanayn yani xaggaasaan ka baxnay
annaga isfangareynayni gudoomiyaha isaga isoo fangareeyay anigu halkaana iska fangareeyay hoteelka annaga lacagteeda kala baxayni qadiyadu inay fariintu gaadho oo wixii dalkii joogana wixii dhibaato ay qabaan la gaarsiiyo in wixii loo qaban karana ka qodobada lagala hadlo kuwa dibadda jooga ee gabooyo isku dhiibayana in la xakameeyo kuwa gabooyo ee dhibaataysan ee amba dhib haysana in dawladihii dhibaatada amba negatifyada amba diidmooyinka ay ka haysteen in xiriir loola sameeyo marka walaal waxaan qabaa iska hadal looma hadlo ilaahay xaq hayna garasiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala bogeer barada sumariyo waan ku dheeraadaan filayaa aad baan idin salaamayaa salaamu alaykum warahmatullahi ta'ala man marlabaad ku salaamayaa gabooyo guul gabooyo midnimo wabillahi tawfiiq